kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka habeenaya Abaar Media qodobadana waxaa qayb ka noqonaya madaxda mucaaradka oo ku kala qaybsamay tallaabo uu qaaday ra'iisul wasaare Roble xisbiyada mucaaradka Soomaaliland oo ku dhawaaqay isbahaysi siyaasadeed dowladda federaalka Soomaaliya oo dalbatay in la baaro doorashooyinkii ka dhacay Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo si adag kaga hadlay guddiga doorashooyinka isbedelada lagu sameeyay qodobada iyo kuwa kale aan idin qarinaya ayaa saaxiibayaal maqli doontaan ee u diyaar garooba iyaga oo inta ka dhameystiran aynu ku bilaabnay saaxiibayaal musharaxiinta mucaaradka ayaa durbaba ku kala qaybsamay natiijadii ka soo baxday baaris ay sameeyeen guddiga ra'iisul wasaaraha oo xil saaray cabashada ay mucaaradka ay ka mujiyeen guddiyada doorashada guddiga xaqiijinta xubnaha guddiga doorashooyinka ee uu magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay goor dambe ku dhawaaqay in 34 xubnood laga saaray liiska guddiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan dhawaan uun bay ahayd markii midowga musharaxiintu ay u gudbiyeen ra'iisul wasaare Roble ilaa iyo 67 qof ay siyaabo kala duwan ay ugu cabanayeen haddaba qaar ka mid ah midowga musharaxiinta oo ka hadlay natiijadii ka soo baxday guddigaasi ayaa ku kala aragti duwanaaday waxayna tani bannaanka ay soo dhigaysaa kala qaybsanaanta musharaxiinta siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa si adag uga hadlay go'aankii ka soo baxay guddiga ra'iisul wasaare Roble oo saaray soo turxaan bixinta xubnaha cabashada laga keenay ee guddiga doorashooyinka halka uu si weyn u soo dhaweeyay musharax Cabdikariin Guuleed Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa markii hore shaaca ka qaaday in laga talagelin xubnaha ay xukuumadda shaacisay ee laga saaray guddiga doorashooyinka kuwaasi oo ay ka mid yihiin xubnaha cabashada laga keenay kuba kale ay wali ay ku jiraan guddiyada sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyay in wali guddiyada doorashooyinka ay ku jiraan xubno ka mid ah hay'adda NISA gaar ahaan kuwa dharcadka ah waxaan aaminsanahay in inta badan xubnihii NISA ka tirsanaa gaar ahaan kuwii dharcadka ahaa ay wali ay si xoog leh ay guddiyada ay ugu jiraan waxaan ka codsanayaa ra'iisul wasaaraha inuu xalinta tabashooyinka uu maro wada sax ah oo daafuran hufnaan iyo dhexdhexaadnimo leh si ay doorashadu ay u noqoto mid la isla ogol yahay dhankiisa musharax Cabdikariin Guuleed oo isaguna ka mid ah midowga musharaxiinta ayaa sheegay in guddiga uu Roble u xil saaray cabashada guddiga doorashooyinka dadaal badan ay muujiyeen isla markaana tahay in la soo dhaweeyo waxaan soo dhaweynayaa go'aanka guddiga heer wasiira ee kala shaandhaynta anigoo u arkaya in guddigu ay dadaaleen muujiyeen faafreeb lagu kalsoonaan karo waxaan soo jeedinayaa in hore loo socdo si dalku u galo doorasho horseeda xasilooni siyaasadeed ayuu yiri Guuleed si kastaba hadalkan ka soo baxay labada musharax ee ka tirsan midowga musharaxiinta ayaa banaanka soo dhigay sida ay midowga musharaxiintu ay ugu kala qaybsan yihiin faafreebka lagu sameeyay guddiga doorashada midaasi oo caqabad hor leh ku noqon karta fulinka heshiiska dhawaan lagu saxiixay magaalada Muqdisho Soomaaliland haddii aynu eegnana laba xisbi oo mucaarad ah ayaa halkaasi ku midowday madaxda xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Hargeysa waxay ugu dhawaaqeen isbahaysi siyaasadeed oo ay labada xisbi ay ku midaysan yihiin hoggaanka labada xisbi ayaa magacaabay guddiyo ka kooban 10 xubnood kuwaasi oo ah guddiga isbahaysiga xisbiyada mucaaradka ah ee hogaaminaya golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka labada xisbi ee wadani iyo cid waxay kala heleen kuraasta ugu badan doorashada golaha deegaanada iyo golaha wakiilada oo natiijadoodu lagu dhawaaqay xisbiga wadani ayaa noqday kan ugu kuraasta badan golaha wakiilada Soomaaliland waxaana helay 30 kursi halka xisbiga u cid oo kaalinta saddexaad galay isaguna uu helay 20 kursi xisbiga talada dalkaasi haya kulmiye ayaa qodiisa helay 30 kursi marka la isku geeyo labada xisbi ayaa helay 52 kursi ama 63% aqlabiyada golaha wakiilada waxay sidoo kale guulay ka soo hoyeen golayaasha deegaanka guud ahaan khiyaari wanaga inta warka caawa waxaan ku xasuusinaynaa in muhiim ay noo tahay inaad inagu soo biirto like iyo sidoo kale follow tirada page-kayga sidoo kalena YouTube-keena subscribe aad saarto si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee macluumaadka wararka la xiriira ee hela mahadsanida